سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضي القضبضاد ورركنا كم مغلي دونتان وحاكم إذا xogaga Tigreega ayaa soo bandhigay muuqaal argagax aad u badan ku abuuray bulshada deegaanka Axmaarada iyadoo dagaal aad u culus ka soconayaan gobolka Walkeed ee xuduudda deegaanka Tigreega iyo Axmaarada ama gobolka sida weyn ay iskugu hayaan qoomiyadaha Axmaarada iyo Tigreega ay sheegeen xogaga Tigreega inay ku xasuuqeen gobolkaasi ciidamada gaarka ee deegaanka Axmaarada muuqaal argagax ay ka soo diyaariyeen goobta dagaalka xooggan uu ku dhaxmaray xogaga Tigreega ciidanka gaarka ee deegaanka Axmaarada iyadoo halkaas uu ka muuqanayo burbur xooggan oo soo gaaray ciidamada deegaanka Axmaarada iyo gabi ahaanba tiknikadii ay wateen oo halkaas dab lagu qabadsiiyay dagaal aad u culus oo geystay khasaare aad u baahan ayaa ka soconaya xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida iyo Oromada iyadoo degmada Guradamole ee gobolka Liibaan ay weerar xooggan ku soo qaadeen maleeshiyaadka deegaanka Oromada dagaal culus oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada oo deegaanadaasi ka soconaya iyadoo ciidamada deegaanka Soomaalida ay guulo aad u ballaaran ka sheeganayaan Guradamole oo deegaan xad la deegaanka Oromada halkaan ay maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayeen isku dhacyo u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada qoomiyadda Oromada ayaa u dabaaldegaysa waxa loo yaqaan Ireja iyadoo ka dhaceen deegaanka Oromada mudaharaadyo waaweyn iyo rabshado ay iskaga hor yimaadeen ciidamada ammaanka iyo shacabka deegaanka Oromada iyadoo jamhadda Oromada ay dhac ka hayso bulshada deegaanka ayaa haddana halkaas ay isku dhacyo dib uga qarxeen iyadoo kacdoon wadayaasha deegaanka Oromada ay sheegeen inay marnana joojinaynin dagaalka ay kula jiraan dawladda Dr. Abiy Ahmed jamhadda Olana ay halkaas ka wado weeraro xooggan ku qaadayso hay'adaha ammaanka iyo ciidanka dawladda federaalka Itoobiya gobolka Oromada ayaa wajahaya caqabado aad u tiro badan oo ugu horeyso dagaalada xooggan ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo dagaalyahanada ayadoo bulshada Oromadu si weyn ay u taageersan tahay dagaalyahanada walalefe ciidanka Eritreanka ee ku sugan waqooyi galbeed Tigray ayaa sheegay inay guulo aad u ballaaran ka gaareen dagaalka ay kula jiraan xogaga TPLF ayagoo sheegay Eritreanka in magaalooyin aad u tiro badan ay saacadii la soo dhaafay kala wareegeen ciidanka Tigreega dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaano hor leh ayadoo dawladda Eritrea wali ku soo daabulaysa ciidamo aad u tiro badan xuduudda gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya militariga dalka Soomaaliya ayaa wali sii baacsanaya xogaga argagixisada ee ka dhaqaaqa dalka Soomaaliya ayadoo militariga dalka Soomaaliya ay howlgal ka bilaabeen deegaano hor leh dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo ciidanka macawisleyda oo isku dhinaca iyo xogaga argagixisada ayaa ka soconaya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay dagaalka inaan marnana la hakinaynin cid kasta oo isku dayday inay hor istaagto dagaalka lagaga xoreynayo xogaga argagixisada dalka Soomaaliyana inay mari doonto wadada ay marayaan xogaga argagixisada ciidamada dawladda Soomaaliyana lagu amray inay howlgallada wadaan gabi ahaan dalka Soomaaliya ay ka cirtiraan xogaga argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha 10aad 2022 haddaynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan xogaga TPLF ayaa sii daayay muuqaalo ay ka dubeen dagaal ka dhacay gobolka Walkeed ee deegaanada ay sida weyn iskugu hayaan qoomiyadaha Tigreega iyo Axmaarada ee lagu muransan yahay maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen dagaalada culus xogaga TPLF ayaa sheegay inay ku xasuuqeen ciidanka gaarka ee deegaanka Axmaarada gobolka Walkeed dagaal ka dhacay saacadii la soo dhaafay ayadoo muuqaalkaasi uu argagax aad u weyn ku beeray baa la yiri bulshada deegaanka Axmaarada oo bulshada dhiban u ah dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya ama bulshada uu sida weyn u saameeyay dagaalka u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo xogaga Tigreega dagaalyahanada TPLF si weyn uga dagaalamaya gobolka Walkeed ama gobolkaasi gabi ahaan intiisa badan gacanta ku dhigaya ayaa la sheegay halkaas inay ku xasuuqeen ugu yaraan 60,000 oo rayid iyo ciidamada gaarka iskugu jira ee deegaanka Axmaarada
sida laga baahiyo warbaahinta deegaanka Axmaarada halkaana ay ka soconayaan dagaal aad culus. dagaalka u dhaxeeya ciidanka TPLF iyo dowladda Itoobiya ayaa marka ka dambaysa si karar qaadanaya isagoo dagaalku ku sii faafaya deegaano hor leh. xogaga Tigrayguna ay guulo aad u ballaaran ka sheeganayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. dagaalada culus oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada ayaa ka qarxay xuduudda gobolka Liibaan ee dowladda deegaanka Soomaalida ayadoo maleeshiyaadka deegaanka Oromadu ay weerar xooggan ku soo qaadeen degmada Guradaamole ee xuduudda dowladda deegaanka Soomaalida iyo gobolka Oromada ayadoo halkaasi ay ka soconayaan dagaal aad culus. maleeshiyaadka ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida ee ka dagaalamaya degmada Guradaamole ayaa sheegay inay si weyn iskaga difaaceen ciidamada deegaanka Oromada. dagaalkuna uu ka soconayo dhulka buuraleyda ee xuduudda ayadoo dagaalkani la sheegay inuu khasaare ba'an geystay bulsho aad u tiro badan uu ka barakiciyay deegaanadaasi. qoomiyadda Oromada ayaa weli ku jirta dabaaldegyada iyo fantasiyada ay u dhigayso maalinta loo yaqaan Ireja ee gaarka u ah qoomiyadda Oromada ayadoo soconayaan dagaal aad culus oo u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo dagaalyahanada OLF ee xoreynta shacabka Oromiya. jamhadda Ola oo ka faa'iideysanaysa u siimaadada dhalinyarada aadka u tiro badan ee deegaanka Oromada ee taageerada weyn u haya dagaalyahanada OLF ayaa la sheegay inay dhalinyarada ay ku qasbayso inay mudaharaadyo waaweyn oo rabshado wata oo laga soo horjeedo dowladda Itoobiya guud ahaanba ay ka dhigaan magaalooyinkaasi si uu khasaaraha isku dhaca dowladda iyo bulshadana u bato. jamhaduna ay halkaasi ka raadinaysa baa la yiri ay ku hesha mar kale inay taageeradeedu si laba jibaaranto. dagaal culus ayaa weli ka soconaya Walega, waqooyiga Shewa, gobolka Gujis iyo deegaano aad u tiro badan oo ka tirsan gobolka Oromada. militariga dalka Eritrea ayaa sheegay inay guulo aad u ballaaran ka gaadheen dagaalka ka soconaya waqooyi galbeed Tigray ayadoo ciidamada Eritreaanka maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen duqeymo dhanka cirka iyo howlgallo aad u ballaaran oo iyaga xogaga Tigrayga ay isku wajahayeen. militariga dalka Eritrea ayaa sheegay ciidamada Tigrayga inuu kala wareegay deegaanada xuduudda gobolka Tigrayga ama waqooyi galbeed Tigray ayadoo halkaasi ka soconayaan iska horimaadyo aad u ballaaran oo u dhaxeeya xogaga Tigrayga iyo militariga dalka Eritrea. qolada kale ay ku eedeynayso inay ayadu weerarada joogtada hawado. qodobareedkan ugu dambeeya militariga dalka Soomaaliya ayaa weli sii bacsanaya xogaga argagixisada ee ka dhaqaaqa dalka Soomaaliya iyadoo dagaal aad u culus ka soconayaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. guud ahaan Soomaaliya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeeday xogaga argagixisada ama gebi ahaanba lagu doonayo in lagaga sifeeyo dalweynaha Soomaaliya si uu dalka Soomaaliya uu markale cagihiisa ugu istaago. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa wacad ku maray inaan marnaba la hakin doonin dagaalka lagula jiro xogaga argagixisada isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay si weyn u garab istaagaan ciidanka Soomaaliyeed marnaba aan la aqbali doonin shakhsiga isku day inuu hor istaago dagaalka lagula jiro xogaga argagixisada iyo asaga inay isku si loola dhaqmi doono. tan iyo kulantii dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.